قال مدحونا دولة جيبوتي مدن إسماعيل عمر قيلة oo kamid ah madaxda ka qayb galaysa shirkan madaxweynuhu waxa uu kamid yahay madaxda ka qayb gali doonta shirkan hadda ayuu madaxweynuhu soo galay isagoo oo kamid ah madaxda shirka ka qayb galaysa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxaana halkan isku soo dhaweyn doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo isagoo halkan jooga madaxweyne Ismaaciil ayaana hadda la sugayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti waxa uu kamid yahay madaxda ka qayb galaysa shir madaxeedka Soomaaliya iyo dalalka dariska kuwaas oo goordhow furbi doona madaxweynuhu hadda ayuu soo degay garoonka waxaana uu soo gaaray goobta shirka uu ka dhacayo waxa halkan ku sugan taliyaha ciidanka xooga General Odawa Yusuf Raage wasiirka gaashaandhigga dawladda Djibouti wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac saraakiisha ciidamada labada dal Soomaaliya iyo Djibouti oo iyaguna halkan ku sugan waxaana hadda yimid madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo hadda toos u jooga halka uu shirku ka dhacayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh ayaana soo dhaweynaya walaalkiis madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo hadda soo gaaray goobta shirku uu ka dhacayo isla markaana uu furmayo waxaana hadda la sugayaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha oo hadda gudaha ku jira iyo madaxweyne Ismaaciil oo hadda isaguna yimid si diran loogu soo dhaweeyo halkan waxaana sidoo kale jooga wasiirka ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah soo dhaweynta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele Djibouti waxay kamid tahay dalalka kamid ah howlgalka ku meel gaarka ah ADMIS waxaana kamid ah halkan sidoo kale waxa jooga wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Jaamac Umar Huruze oo isaguna wafdiga maadaama wafdi heer caalami ay yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ay si gaar ah u taabanayso madaxweyne Ismaaciil Cumar ayaana la sugi doonaa oo isagu si diiran loo soo dhaweyn doono Dr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana soo dhaweynaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo hadda toos u yimid halka uu shirku ka dhacayo labada madaxweyne ayaana ismarxabeynaya oo si diiran ayuu madaxweyne Xasan u soo dhaweeyay walaalkiis Ismaaciil Cumar Geele iyadoo oo howlka shirka loo sii galbiyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo isagu kamid ah wafuuda ka qayb galaysa ama shirkan qaybta ka ah dawladda Djibouti waxa halkan jooga taliyaasha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan iyo taliyaasha kale ciidamada dawladda Djibouti oo iyaguna halkan jooga waxa la sugi doona markan waa madaxweynaha dawladda Kenya mudane William Samuel Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo iyaguna goordhow la filayo in halkan ay soo gaaraan waxa sidoo kale la sugi doona oo halkan kaliya waxa la sugi doona ay tahay in shirku uu si rasmi ah u furmo maadaama madaxweyne Ismaaciil uu yimid waxa kaliya hadda la sugayaa madaxweyne William Ruto iyo ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed kuwaas oo iyagu shirkan qayb ka ah iyadoo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdishona ay ka socoto soo dhaweynta madaxda halkan oo ah meesha uu ka dhacayo shirkana waxa hadda si rasmi ah ugu sugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dawladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele kaliya waxa la sugi doona waxa ay tahay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed shirkan waxa uu yahay shir muhiim u ah gobolka maadaama dalalka safka hore ee dariska ee Djibouti Kenya Soomaaliya iyo Ethiopia ay iyagu yihiin dalal xuduudo wadaaga isla markaana ay iska kaashanayaan sidii loo sii xoojin lahaa dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkuba ay dalka uga xoreynayaan kooxda khawaarijta al-shabaab kuwaas oo dib u dhac badan u geystay shacbiga Soomaaliyeed ee horumarka jecel
waxaana shirkan si rasmi ah uu maanta u furmi doonaa iyadoo shirkii shalay ka horeeyay ay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada Soomaaliya iyo dalalka safka hore ay ku diyaariyeen ajandaha shirka waxaana xusid mudan in hadda maanta la gudageli doono shirkan nuxurkiisa ugu badanna madaxdu qaadan doonaan kadibna warmurtiyeed ay soo saari doonaan goordhow waxa aan si toos ah idinkugu duubi doonaa madaxda kale ee maan doonta oo madaxweynaha Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed